jeclahay inaan u mahad celiyo dhalinyarta aqoon-yahanka ee waqtigoodii u horay inay baahiyaha gobolka Gabiley halka uu socdo iyo halka joogo iyo wuxuu u baahan yahay inuu helo ka hawlgalay sidee heli lahaayeen runtii qorshahaasi qorshe aad iyo aad muhiim u ah dadkuna haddaanay garan halka joogaan iyo halka rabaan inay gaaraan iyo waxay u baahan yihiin inay ku gaaraan runtii waxay noqonayaan qof indhalo oo socda aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa laba qodob ma ku soo koobi lahaa hadalkayga aad baan u soo dhaweynaa gol ahaan qodobada shirka ka soo baxay dhammaantoodna aad iyo aad bay muhiim yihiin waxaana jeclahay inay dadweynaha gobolka ay soo wada dhaweynayaan waana arrimo loo baahnaa oo aad iyo aad u muhiima waxaan jeclahay inaan hal qodob yar adkeeyo oo ah qodobka maamulka ama dhamaystirka sharciyada gobolka runtii xukuumadda Axmed Maxamed Siilaayo waxaan uga mahad celinaynaa iyadoo gobolku ansax ahayn ayaanay haddana waxa weeye heer gobol ay ula dhaqmasay waxaanu dareensanahay inay xafiisyo badan oo wasaaradaha la dhisay inta iyadu talada dalka haysay xafiiskii wasaaradda maaliyadda xafiiskii wasaaradda waxbarashada xafiiskii wasaaradda deegaanka xafiiskii wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska oo isaguna hadda gacanta lagu hayo jaamacadii oo wasaaradda waxbarashadu ay hoolkii ay u dhisaso isaguna imika gabagaba ku dhow dhawaana la filayo inay runtii xadhigga laga jaro waxaasoo dhan waa wax heer gobol ay xukuumaddu ku fulisay waxa kale oo tusaale ku filan buugga wasaaradda qorsheyntu ay diyaarisay lagama samayn gobolladii kale ee Gabiley la midka ahaa mar lama wada magacaabay lixdii gobol ee hore iyo gobolka Gabiley baa laga sameeyay marka arrinta sharciyada ee dhamaystirka ansixinta gobolka runtii waa arrin baarlamaanka u taala waxaan ku dhiirigelinayaa sidii baa qabal ugu soo sheegay in xukuumaddu runtii ay ku dhiirigeliso golaha baarlamaanku inuu ansixiyo xildhibaanada golaha baarlamaanku oo nagala jooga Cabdillaahina waxaan ka codsanaynaa in maadaama gobolka Gabiley shuruudihiisu dhammaystiran inay ansixiyaan qodobka labaad jeclahay inaan ka hadlaa waxa weeye runtii qaranka Soomaaliland iyo shacabkiisa waxyaalo qaarna de waa lagu kala aragti duwan yahay oo asxaab qaran baa jirto ninba xisbiga qancinaya waxyaalaha aynu ka midaysanahay qaranimada Soomaaliland ay ku jirayso nabadgelyada in la ilaaliyo iskaashiga iyo wada jirka ummadda reer Soomaaliland in la ilaaliyo jiritaanka qaranimada Soomaaliland iyo in laga qayb qaato horumarku waa wax laga siman yahay taasi laga siman yahay waa inay ka muhiimsanaato inta yar lagu kala duwan yahay runtii dhalinyartana intaasaan ku dhiirigelinayaa iyo guud ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland mar labaad aad